asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ardayda sharafta leh dibsan dhawaada channelka meesha rajayna macna caafimaad qabtaan in sidaas oo kale alxamdulilah maanta meesha waxayna macnaha short sentences cashar macna aad qiimo leh sentence jumladooyin oo macnaha qiimo leh way fadlan haddii macnaha channelka uu subscribe like comment ama waxaan kilmaanto insha allahu tacaala cashariga aan gudagalo short sentences jumladooyin oo gaagaaban short sentences jumlad oo gaagaaban jumladooyin oo gaagaaban short sentences. Okay, I am washing my clothes. Sentence koowaad fiiri, I am washing my clothes. I am washing my clothes. I am ani washing my dhagoy my clothes dharkay. I am washing my clothes my dhagoy dharkay. I am washing my clothes dharkay dhagadoy. I am washing my clothes dharkay dhagadoy. We are playing a game. We are playing a game. We are playing a game. Unume dhelone and game dhelone man iyara iyarone mana. We are playing unume iyarone a game iyar. We are playing unume dhelone a game iyar. Ya dhelone yani markii baloo dhigas ma we are playing a game ana kooxdaas macna markii oo baloo macna iyaaroytan we are playing a game markii macna game kasta dhigato macna kadhalika sidaas oo kale we are playing a game. Okay, saas daas insha Allah taala. Okay, she is cooking food. She is cooking food. She is cooking food. E may kariyoyte hunguri. E hunguri kariyoyte. She is cooking food. E hunguri kariyoyte. She is cooking food. E hunguri kariyoyte. She wa nagal isticmaalay she nagt she ayada ama e is cooking food hunguri kariyoyte. Okay, let's go. They are listening radios. They are listening radios. They iyo they markii badan ayaa madhaasay they iyo they are iyo listening may dhegeysadooyna radio raadi iyo dhegeysadooyna. They are listening radio iyo may dhegeysadooyna raadi. They are listening radios iyo raadi dhegeysadooyna. We are cleaning the mosque. We are cleaning the mosque. We are unu cleaning may nadiifiyoyne the mosque masaajidka. We are cleaning the mosque unu may nadiifiyoyne masaajidka. Mosque waa masaajid. We are cleaning waa nadaafin. We are cleaning unu may nadiifiyoyne the mosque masaajidka. Okay, ay markii macna guriga ama mininga may dhaasay we are cleaning the house unu mininga nadiifiyoyne. We are cleaning the compound unu xaranta nadiifiyoyne kadhalika insha Allah. Okay, he is reading the lesson. He is reading the lesson. He is reading the lesson. He waa ninka markii ninga he laakiin she naagto she he also she ayada ama he no also ninka la isticmaalay he is reading the lesson also ma akhriyoye casharka. He is reading the lesson also casharka akhriyoye. He is reading the lesson also casharka akhriyoye casharka. He is reading the lesson also casharka akhriyoye. Ali and Adam are good friends. Ali and Adam are good friends. Ali iyo Adam saaxiib fiican wey. Ali iyo Adam saaxiib fiican wey lamadoo macna saaxiib fiican weeyaan wey. Ali and Adam are good friends. Ali iyo Adam ana saaxiib oo fiican weeyaan lamadoo macna iska fiican yahan saaxiib oo beele wey kase. Ali and Adam are good friends. Ali iyo Adam ana saaxiib fiican wey. Amina is the best cooker in our house. Amina is the best cooker. qofta macna wal kariska inka fiicanaayto in our house mininkayna. Amina macna qofka mininka wal karis inka fiicanaayto wey macna. qofka macna wal karis macna inka fiican majar ila bes is the best qofka inka fiicanaay inka wanaagsanaayo qofka unta kariska dhinigi unta kariska inka wanaagsanaayo wey macna. Amina is the best cooker in our house. Amina qofka
macna cunto kariska inka fiicanaay guriga iiwe macnaha Amina qofka cunto kariska ama hunguri kariska inka fiicanaay gurigayna iyada way Amina is the best cooker in our house. My teacher explained the lesson 2 times. My teacher explains the lesson 2 times. معلمكي my teacher معلمكي explains معناه ما يفسره the lesson عشركة 2 times لما مرة معلمك من عشركة لما مرة فسره my teacher معلمكي ما هو شيء هذا معنى سكرته my teacher معلمكي explain فسره يعني explain فسره the lesson عشركة 2 times لما مرة معلمكي لما مرة عشركة معناه فسره my teacher explained the lesson 2 times معلمك عشركة لما مرة فسره Okay, let us repeat كسنكنا short sentences. I am washing my clothes. You are playing a game. She is cooking food. They are listening radio. We are cleaning the mosque. He is reading the lesson. Ali and Adam are good friends. Okay, Amina is the best cooker in our house. My teacher explains the lesson 2 times. Okay, معنا عشر كان مانتي sentence أما جملة ياشان مانت حلاس كومناي فتلا معنا مقال تجي علاتي subscribe like comment share معنا كيلوتو إن شاء الله تعالى اسألك دنبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.